Lanky wala she must be the house for me. Kurumai arura Murake na helane bidola Kurumai arura Murake na helane bidola Kurumai arura Murake na helane bidola عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت فايلة دتكنا في سدها أنا أرجع ميل كاستي سيروكدان حكدا هذا برنامج جار أو نيونجيك فضح إن أنتي ونحضرنا لما دكون يتم اللي سنتك سد بدن سومالي دم وده سوق هاي تقولك بالان سناي أنتي دارش جود يا كلية دلك سومالي حدبا سؤالي سؤال سواكم بدون ما بيتا دتك كوجيد ديجانا ده كونفور قلبيت السوماليا إن بدن يقطعمين مر intiyo maslaxa mismiiska madaxtinimada Soomaaliya marka ku muuqdan hadaba rajadiyo saata may rajo ilay may indiyaarsan may fadaxayaan may qorshe mis abaabul dadkaasay maaragtay xilligun iyo wada hadaba barnaamijkaasay si in walbadan ku ogaana mayba barnaamijka martiinka Dr. Abdullahi Ibrahim Amandori oo ay dhinigay midig fidaysiin wada aragaha ay tamis kasaasan saas oo kale ustaad Adam Increase oo isin safaylan wada kasaasan usiina nigay bada fadhi iyo kumid lamaadiyo mas'uuliyiinta madaxda warbaahinta koonfur galbeed ee Soomaaliya ugu horeyntii mayba jeedala intaan ka dhawaayay Dr. Abdullahi Ibrahim Dr. ka dhawaaw warbaahinta koonfur galbeed oo Soomaaliya marka lamaad mayba jeedala lahay hiigsiga lamada kun itum ilita ya inta badan ma aragtay dadka Soomaalida kulliyo dhagaajoon wada teeganyi misin loo joon furuni dadka ha ku jeedan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo in badan isin taariikhdii aruuriyaasano wal ku qoraasano wal in sheegasan may xillugun iyo rajeeyahayaan may indiyaarsan may fadahayan lamada kun itum ilita may fadahayan intii maslaxayo hal fadheedan hay doctor السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ورباهنتا كوفر قلبيت إيدي إيدا وما تنتين كنتي برنامجكم أو جيكم الفضان إن ونقدوان أو هيك سجل لمدكم يتم إلته ويبوها إن إنجليز كويري when there is hope there is life مفكر بلي أغني أنت وصل مركز رجل أنغس أسلك ما معناه ويبوها هيك سجاس لمدكم يتم إلته سدو ومذاكر أم خرومكل أو صومالي كوميد sidiyo rajadiyo iyo unfadaan in wadankaas hormar am kala weybo maamulkan ka sare ku qabad lahaayeen saas oo kale uunu jeelna in unu nagan waxa way ma arnay dadkii oo maamulkan ka sare ku qabad lahaay wadanka Soomaaliya hadii ana umadaha ku jeedo koonfur galbeed ee Soomaaliya iyada ma asad doctor saas oo kale isla su'aal sayma ba am bandhigay wadaykay dhinigay bada fadhiyay doctor mase ustaad Adam Increase hay Adam بسم الله وكفى مركا ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa warbaahinta koonfurta galbeed ee Soomaaliya wariyafaad barnaamijkan adigu aad daadihinaysid anigu haddaan fakarkayga aan isticmaalo talyaanigu wuxuu yiraahdaa non e duwe e campagne tre e folla macnaheedu waxa weeye laba waa wehel saddexeeyase faa'iido male si kastoo ay tahay anigu waxaan haystaa fikradda oranaysa pessimist reer koonfur galbeed Soomaaliya in ay 2016 ay gaaraan madaxweynimada federaalka Soomaaliya villa Soomaaliya waa tahay eedeeda ma hasinyi ustaad Adam Increase iyo Dr. Abdullahi Ibrahim aragtidiyo gaar ahaaneed markuluuna ku gudubno rajadiyo misasidiyo fadayaan hadaba dadka deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya xilligan ma indiyaarsan hiigsiga lamada ku itumilita may abaabul dareera meega musharaxiin ay wadataan meega xisbilatiin meega maaragtay oo mas'uuliyiin luq obsagabanti oo musharax iyo hanagata meega luq yaab intii arintaasi ha ku horjeedo maaragtay lugooy ku soo beenor luqto qabadan maaragtay bal fikirkii madalaha gudba aragtida guud maadaama isin wariyaal haytan reed anaga tan dadkii isin matala haytan rajadiyo
aan doogay bakinka bilaag horta way baa qofka bini'aadmiga ilaahay rajalaan horta ma dhigo runtii way baa horta garaadka oo reer koonfur galbeed geedka sidii aan arga way baa garaadka dhismi markaan kala way baa مثلا 20 sano am kala 30 sano sidii ku hor iyo haada jireen ma مثلا way baa in macalinka way araan pessimistic ah hadii aan dadkaan ambiyaanay مثلا eragaas pessimist hadii aan dadka oo مثلا oo na dhigin sidaa oo laakiin wala ku fahmna hadii aan ambiyaamay way ku mid way baa qofka bini'aadmiga am ka dadka bini'aadmiga weelin shal qaybiyay wala raw optimist iyo pessimist optimist way baa dadka oo dhinigo fail wal ku aragayaan way optimist mana way baa wal kasta hadii aad warsat way baa saasa dhii doonto wal fail dhii doonaa kare pessimist sidaa way baa ustaad aadan sheegay hata way baa aan rajada aan argaw lamada kun itum ilite oo koonfur galbeed way baa rajo fail ma yaa la jeed sorta kaas kiishay waaye laakiin aan way baa runtii en wala aan argahay way baa maadaama oo sadhismi garaadkii oo reer koonfur galbeed مثلا dhalinyarada oo hadaha bati aan odayaal ma ku doogow laakiin dhalinyarada hadaha bati ween argahay way baa in yo fadaayaan lamadkum itum ilite isku dhaaf lamadkum itum ilite waa dheerta way baa hataa sanadkum aakhir shay hataa wadanka waxa way marna maqaamka aan ka sareeyo in uu qobada lan oo ka ku jeedo koonfur galbeed marka may abaabul ee dareera hadii aad i weydiido way baa runtii abaabule horta dareeran way baa hadii aad fiirido runtii en eedmiin badan laakiin haddana way baa barnaamij way fiirsaday geerad oo ku dhii مثلا magaalada Baydhabo oo qaban qaabiyeen dad oo wal gorad ee qaban qaabiyeen oo ku doowaayeen en hiigsiga en lamada ku itumilita taas naftirje way baa en rajo fayl way oo qaban qaabada ku mid ah maadaama una ana umad oo way baa runtii fox kain oo way baa Baydhabo leh way Baydhabo way baa dabshid kainna la ku shide dabkaynana way baa Baydhabo la ku damiyay marka hadii Baydhabo ku bilaabatay waxa lamada kun itum ilite ana rajo wanaagsan leelata way baa macna way la ku yaaba in ay faafto oo shanta qaaradood adduunka deerto oo waxa way marna umadiyo hindhoosho furaan oo iska hirimaan oo waxa way marna en garaadso iyo deeru in waxa way marna en mustaqbalka digil imirflahan jiidan wal fayla waata ya kignaga doona doctor ustaad aadan marka la ku gudub rajada gaar ahaaneed adagabta maadaama lan wal qoro oo wal uriyo oo maaragtay in badan bulshada ka dhex jaradeeta sidee uu rajada dadka ku jeeday deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya hiigsiga lamada kun itumilita may ka taamahaytan may fadahayaan intii oo mustaqbalka lamada kun itumilita wal yarnay ku dhiman intii helan mahadsanid mar kale wariye ma ameer ba ma igir ba lama oga amuur soo looma xiro soo ma ogid neefki irmaana amuur macnuhu waxa weeye koonfur galbeed ee Soomaaliya haddii aad koonfur galbeed tahay dhibaato badan baa ku haysta wiilka ama gabadha reer koonfurow dhibka ku haystaan ku sheegay faad inaan runta isu sheegnaa fiican maalin kasta in aan is amaano dadkeena aan amaano macna ma samaynayso action waxa loo baahan yahay action dhab loo baahan yahay war dadka koonfur galbeed maanta dhalinyaro weyleeyeen sida doctorka uu sheegay oo garaadkoodu dhismay laakiin waxa ku haysta laba shaydaana ku haysta ana caaw ku kala cadeynaya runtaan isu sheegaynaa ma ahan inaan macnii waan la haystaa maalinka saddexeeyaan ugu jira sida haday uu sheegay duwe campaign tare ee folla macnaheedu waxa weeye saddexeeyaan haysta inaan eedayna kaliya maan war laba xisbiya koonfur galbeed ay ka kooban tahay maanta siyaasiyiinteeda labadaas xisbiya ku haysataan labadaas xisbi jawaari mid odaygan dareen laawaha ee jawaari xisbi oo hogaaminayo oo gacan ku rimis oo macnaheedu cadowga koonfur galbeed gadaal ka riixayo oo kursiga degays aan ku dhameeyo oo kursiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo diyaarinayo 2016 iyo xisbigan macnaheedu odaygan isaguna qandaraaslaha Shariif Xasan uu wato oo ma arkayse laakiin macnaheedu is soo bixiyay ninna waa nin la wato labadaba macnaheedu waxaan u arkaa laba lugooyaan u arkaan laakiin qolana waxa weeye midna waa hoosta laga riixaya isagu isma wado waa lagu shaqaysanayo waa jawaari xisbigiisa iyo wasiirada uu wato qolana isaga iswada balse laakiin dal iyo dad milaal iyo dilaal weey wuxuu macnaheedu shacabka u haayo macnaheedu ma jirto sababtaan u leeyahay waxay tahay 38 xisbiya ka dhisan marka 2016 kaliya laga tago 2020 hadii Ilaahayna gaarsiiyo Soomaaliya waxay u socotaa hanaan xisbiya u socotaa hanaankaasi xisbiga ah
soddon iyo sideed xisbi ee maanta Soomaaliya ka dhisan 7 ilaa 7 la aqoonsan doona ama 3 dawladdu ay aqoonsan doonta hal xisbi aad ku leedahay kaasna xitaa macnihii koonfur galbeed isuguma tagin inta kale Jawaari de engineer Saalax de Shariif iyo groupkiisa de all waxay ku wada jiraan xisbiye kale oo dadka macnihii mayga ka soo horjeeda koonfur galbeed ka soo horjeeda ay leeyihiin ay u shaqeeyaan marka sidaas darteed hadda waxaan ognahay xogaha koonfur galbeed ee Villa Soomaaliya aan ka heli karno iyo Baydhabo waxaan ognahay in rag Jawaari xisbigiisu uu ka mid yahay iyo kuwa hadda Baydhabo jooga oo macnihii Shariifna la shaqeysta Shariifna ka soo horjeeda qaarkood ay laba wajiilayaal ay isu diyaarinayaan sidii gudoomiye baarlamaan 2016 ay ugu fariisan lahaayeen kursiga Villa Soomaaliya sidaas darteed geeda hadlay hadda koor geed wuxuu yiri masaaru la hadlay wuxuu yiri ima aadan gooyseen hadii gobolkayga uusan kugu jirin koonfur galbeed Soomaaliya hadii dhalinyarada maanta garaadkeedu soo baxday ee doctorka uu sheegay macnihii faraha looga qaadi lahaa odayaashan la iska horleexin lahaa kursiga Soomaaliya iyada ayaa gaari waa tahay eedan keenaga doona lamada oo maartay oo group oo digil miraflo horsulun ada sheegdi nin faahfaahin doonto doctor hoona adariyada keenaga may bataray maartay rajada eedan faylat sidii hortima digil miraflo walbadan fahmeen reer koonfur galbeed hakaheen lamada kun intu military rajo faylal dhalinyaro badan habatay tari هذا إنكريز ما بشيء هاي أنتي رجال كوين سومالي ودقيل مرفلها مثلها هاي مش كونفور قبل مثلها هاي وجروب لانك مدحوينا دولة جولات كونفور قبل شريف حسن الشيخ هذا جروب لما يبغى مارته قدومية برلمان كبروفيسور محمد شيخ عثمان الجواري لما ذا بحس بيك على أن شجعي هاي والدمتي يوني ديجانا دقيل مرفلها ما كشجعي هاي أوكي وأنا ما يبغى ناس دياري هاي لما ذا كون يتميل لته سديو قدومي برلمان يوم حنا ذا الله هاي يوم قبض ذا الله هاي rajadii ada sheegasi in rajabeelku eedan sheegahay bal sida meelo in iska nashaano korna maadaama lamaadin bilaamadan wal isla qorahayo maaragtay oonay oo deegaanadana ku jeedaysa wadati run way horta waxa aan geey koy fadahay shireedii in aan ku doo horta waxa way may faylalay in run way raadis waxa way ma arnay istaadka xoran ay waan wal aan aragahay naftigay waa laakiin way buu in dadkun digil imrifal araway buu wal an taladi mesela إن ويجرت شيء كذا ير أو مركب يرايني ولني ديدي يجري موشي لكن ويبوها شيء عجيب هايتي أو هايتي مثلا إن دينك أول شيء وقت جيك أول ويلا ري وحاول مرني إن ولف ملاها إن الأهل هيلبلي هايب مركب دار يرجري مركب هسا ويبوها شمبرا انشورتي شمبر ويبوها اللي جاي ويبوها صدات قبيلة كل أو كل ويا انشورين وين ويبوها هيلب كاس أو اسكو دار يراهي إن أنا فضانا هيلب كويه قاعد ويبوا مثلا تسدقيل مرفلوس إيه أو حوادث أو شمبرتنا قبيلة كلا شمبرتنا قبيلة كلا مركا دينكي وين ويبوا شمبروغون مليو إنك شرايين أو يفضاين ويبوا سكين يو آمان إلهي مروقني ها إلهي روق اسكت أفاري مركي آمن هو بيفضاين مركا فيري معه حاول مرنا الدين كاس رجل فيلي يلا هاي أو حاول مرنا دي إلهي بؤس الروجو إن حاول مرنا مستقبل كحتى إن والله بعض كورن أولين عام كورن أنا ويبوها شمبروج ويبوا سديان كتلدين هبين هبوبين سديان دريرين الدين كي أو هيلب لي الدريرو حاول مرنا أفر لغات كدريرو كرشة سوري من مركيو سديان سوري من يو آمن فضاين لا فنا قال إلهي وحاول مرنا لفتون كورن كدبول أو قلفتون كورن كسار هو بيوكوين تكست أفشاق الله عادي oo afkii baab ku jabeen marka xisbigun iyo reegun la abaabul lahay reegun walaagun dhon hadeed haas ka darto way buu rajada ilaahay horta malku quursadaw way buu boqol xisbi siyaasadeed hadii iyo suubiyaan wali ku yaabay halko xisbi oo suubini in waxa marna ilaahay bareeno ku guulay hadii way jireen xisbiyaal oo qarsoodi ay ahaano qarsoodi aan hayn han qarsoodi aan hayna way buu lama oo la bandhigi sidii hordhaanbo aan sheegnay ama istaadka aan sheegnay iyo 48 xisbo oo hordhaan aan sheegnay adii bisheegto soo bisheeg oo qolooyinku iyo kala yooleyn marka way jiraan xisbiyaal kale oo wali la bandhigna oo qarsoodi ah laakiin markii oo la deero dhaqdhaqaaqa rasmiga oo tartanka rasmiga la deero yoo la bandhigi doono adii baad ku horlanka oo wareysato kumid oo professor hadan magaashi ana
jeeli in aan sheegno oo usakari xataa way fadaa waa inis diyaariyahayaan hiigsiga lamada kun iyo toban marka أنا ويرلاي ويبوه إن رجل إلهي إنكو قابن أو إلهي إنك marka ragaasay has abaabulahay ana maaris sida diinkan afdhoog la codona la taa هذا ويبوه رجل إلهي ملكو حوا مرنا مال يرايسدو حسبيد لما حسب كهان هدرن أو قرشودي ويلك يابا إن إلهي حوجي أو يو قولي سيدنا معقول oo madaxtinimada Soomaaliya هان خيامده ودان إن يونغدان هاني أوف ذاين هيلب كتدين كنتي أما هذا مرنا أفشق الله waata keenada doon doctor ustaad Adam hadalkii ka horey riyadan kana gada lama xisbiya in shal adeegaanga tari mas'uuliyiinta lamada in okay dadka deegaanada koonfur galbeed ku jeedan aqoon-yahanyo wal gorodyo wariyaalyo siyaasiyiintiyo malaaqeedyo dadka oonay lamadaas xisbi madax banaan ما فيلهاين هوب ما أركتي لما لان ولا لا هذا كيل قالت لما ذبح ما دام بس لما ذبح كتاب داسة حتى ونقول سيد هذا قال مس ولا الكاي هذا روج أنتي هو اللي هذا ديبت مركب ما فيل هذا لهاين أنتي نسكيرنا ما أركتي جروب كجواري يو جروب كلا شيء لا أنتي لهوس روج لا حتى أو أقوياء كي أنا إندرجرت كي أنا سياسيين كي أنا دتك كلت أنا دجاجة كونفورتبل بيتا كجيدان وريه فهد markale waa mahadsan tahay hal qodob aan rabaa inaan ka saxo midda aad tiri aaway dadkii taasi xal waa laakiin hadda waxaan haynaa fikradda ah tan aan qabo bisameest oo macnaheedu rajaxumada kursiga reer koonfur galbeed ee 2016 kursiga Soomaaliya Mr. Fahad waxaan rabaa inaan ka saxo waxaan ku dhahay laba xisbi baa jira jawaari odagaan dareen la'aanta iyo qandaraas la shariif ay kala wataan ninna waxaan ku dhahay jawaari xisbigiisu waa dad dabada laga wado oo u adeegaya qabiilada kale fahan ninna waxaan ku dhahay isaga iswada isa soo saaraya wuxuu rabaa madaxweynimada Soomaaliya rabaa laakiin isagu waa qandaraasle danta dadka macni aayo waxa uma hay dhibaatada meesha ugu badan xagee ka jirta aqoon-yahanadii aaway indheer garadkii sidee indheer garad aad ku gaartaa shacbiga nimanaaba kala oo tayaan ku dhahay معني لبادان قفا بكلام أنا حولوا إيرنا شعبي وحب ما هن شعبي الدربان الله تمايا نمانك أشيء يصير أقويه هندا يا ملاقيه ده الله ده قاركود هذا حسبي كجواري بيدبو قدره هذا مفهوم أو ملاقيه كميت أقويه هنا أو قاركود دتك اللي حدا قبل أساسا مرنا سد حدا قبل وكبيره فهمت وين أنكون دقنا هدي رن أن الهلين فؤاد وليجن هرمر ملا جارا يكون فرق البيت mana gaarayso maalin kastina in samaano marka aan ku dhameeyo dad baa maanta xamar laga diray baydhaba loo diray waxa la yiri saddex gobol hadda la dhisay dabcan macni qadiyada iyo shakhsiga laba waay saddexda gobol annaga iska leh lixda gobol waan rajaynaynaa taasi macni inaan ku mashquulna maahan laakiin siyaasiga in runta loo sheego oo macni runta la isu sheego aad ay u fiican tahay dad saddexna ahaa lixna ahaa oo dad la yaqaana baydhaba loo diray $100,000 la siiyay waxa la yiri maamulka saddexda gobol burburiye ani ma doonayo maamul saddex gobol in la burburiyo wax dhisan in la burburiyo ma doonayo macnihi wax iga maqan inaan ka tagana ilaa ceelwa malgaariin wala hadda bedalku yeekisi sintay awlaadina dhacan la fadeen ma doonayo أنا قرش ميلو البربرة ولا كأذيك سنلها والمقام إيه كقبض ما لقول دسو قرش يا ديباية واحد ديباية dad cadow ku ah koonfur galbeed Soomaaliya dadka la soo adeegsanaya villa Soomaaliya fadhiya ee mas'uuliyiinta adiga ku matalaya aad isleedahayna waa dadka macnaheedu baydhabo maanta oo hore u socota shabeellada hoose oo hore u socota iyo bakool oo hore u socota iyo gobolada maqan raadintooda habkii lagu raadin la ciidamada qorista iyo dhisidda ay socoto waa shariif bari meeshu ka bixi kara jawaari meeshu ka bixi kara laakiin qadiyada wax dhamaanaya ma baa la doonaya hadda in la burburiyo qofka dadka iyaga xagee ku gaarsiinayaan qof maanta la rabay in ficiisa uu la tartamo asaagiisa iska celiyo 2006 uu u tartamo maanta baydhabo ku soo noqday ee raba inuu maamulka burburiyo xaguu ku geynaya taas waa taas waxa jira niman wasiiro ah oo dawladda federaalka maanta waan matalnaale wasiiro waxaan haynaa maantay annaga aan saxaafad ahaan aan la xiriirnay saxaafadda koonfur galbeed intay u tagtay villa Soomaaliya ugu tagtay iyadoo waraysi ay ka qaadi rabto albaabada macnaheedu waardiinta lagu diray la soo eriyay wacday saxafiyiinta kale ee reer koonfur galbeed aan ahayn
welibana lacag ugu daray kuwaana loogu hanjabay in la dilaayo waardiye lagu diray markaa kadib intaan telefoon ku wacnay aan dhahnay warniyow sidee wax u yihiin uu naga qaban waayey qaarkood ay Yurub yimaadeen markay yimaadeen inaan weyneyno wasiirkeena oo federaal ku jira yimaaday xaflad aan u aasaasnay oo macnii qarash aan dhiibnay markaa kadibna macnii uu gooyay markii la helayna telefoon lagu helay warbaahinta kale ee koonfur galbeed aan ahayn isagoo waraysi siinaya marka la yiraahdo aan ku waraysano fadlan wasiir maadaama wasiirkeena nimatala federaalka aad ka tirsan tahay aad noo tahay aan kugu faanayno waraysina si marka la yiriin wuxuu yiraahdo anigu wasiir koonfur galbeed ma ahi wasiir qaran bana shalay toolana ummadda koonfur galbeed kaas oo kale ee midka lamid ah iyo midda lamidka ah waxay u sheegayeen intaysan wasiir noqon koonfur galbeed danteedaan u soconnaa annagu waan dhacannahay haddaan maynahay haddaan lixda gobol nahay waa dadkii odhanayay dadka noocaasa ku matalaya xaggay ku geynayeen qaar waxaa jira sheegtay daarood iyo hawiye sheegtaa jira adigana wasiiraad shacabkaan la yaabanahay shacabka telefishinka qabyaalad baa gashay shacabkeenna xataa waxay leeyihiin haddii heblaayo ama hebel wax laga sheego maxaa wax looga sheego waa qabiilkaygii villa soomaaliyana wuxuu ku joogaa inuu hawiye yahay ama daarood yahay ama macnihii isaaq yahay asalkiisu aan koonfur galbeedba shaqo ku lahayn kuwaasaad rabtaa adna 2016 oo aad haddii wax laga sheego aad u qiiroonaysaa xaqiiqda allaahna fahamsiiyo faad rajadaadu way xun tahay 2016 haddii aan laga xoroobin dadka noocaas oo kala ah doonaya ma arkaysa gudoomiye baarlamaan in ay galaan hadda waxa ugu maqala wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta federaalka Soomaaliya in uu ololeynayo qaasatan isaga inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo ku riixaya annaga digid iyo miriflaan nahay mirifla kaliya waligiisa muxuu wax u noqday ma qabiil baa loo taagay maanta waa tahay arintaasay marka su'aalo ana qabo yama bedelanka mas'uulka oo deegaanada koonfur galbeed ku jeeda example hebel ana meero markuusu gudoomiye baarlamaan tartamow ataa misxaq in leeya intii uu madaxtinimada dalka Soomaaliya uu walku nagad idagayso aniga shakhsi baan ahay wariyaan ahay fikradeydana waan madax banaanahay mid dadkana waan macni ka hadlaya wixii xooraansiya Shariif Xasan Sheekh Aadan siyaasadiisa waan ka soo horjeeday jawaari labadaba haddana labadooda waxaan taageersanahay marka ay noqoto kursiga Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan sabab wax walba sabab bay leeyihiin waa inaad gurundi sabab cadeynaya aad keentaa qabiil inaad ku raacdo maan qofka Shariif Xasan Sheekh Aadan hadda ka hor madaxweynimada Soomaaliya isu soo taagay ninkii ugu horeeyay ee koonfur galbeed ka soo jeeday isagoo hortii uu soo istaagay si furan inuu ku sheego inuu rag dal ay jiro inuu madaxweyne isku sharxo haddii aan helana haddii uu lahay isaalin waxaan ballan qaadaa inaan ummadda Soomaaliyeed u adeego u khidmeeyo ayaga inay adeega ii dirsadaan aan qabtaan ballan qaadaa runtii hadda ma fahmaysaa gudoomiye baarlamaan ma qaadan marka iyada ah macni hankiisa ah inuu kursiga Soomaaliya uu madaxweyne ka noqdo 100% waan ku taageersanahay laakiin fiiri ninkan ma arkayse jawaari ha ahaado kuwan kale war adiga maad u tartantid madaxweynenimada Soomaaliya maxaa ku diiday 9 bilood baad ku dhalatay igaarka kale ee maanta ilaa 60kii ilaa iyo maanta madaxweynaha Soomaaliya ah 9 bilood buu ku dhashay hooya laga soo hoos qaaday 7 bilood kuma dhalan adiga maxaa adiga gudoomiye baarlamaan oo ma arkaysa waliba lagu doorayo waa tahay maxaa adiga kugu kalifay why this is معني the point in la taabto faad okay inkastoo aan asigaan marmarka qaarkood taakooyinka isu dhigno laakiin haddana runtii haddana iskuma fogaano qaarkood ma gaarno si kasta u dhacdeen runtii horta aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa aniga maalintii iigu dambeysay hotelkan waa isku sharxay waxaana rabay inaan madaxweyne u tartamo sida xaqiiqda marka si kasta u noqotay hadda asaan u eersan asaa taakay dhigay keenaga doona iyadan ma adsanta doctor su'aalis warshado ku mudan yama beeta madaxweynimada Soomaaliya dadka deegaanada koonfur galbeed ku jeedaan xagaan leeyina mise mangle jawaabtu way buu afadud way buu in lankasto oo ha ku jeedo Soomaaliya digil imir filay haadeen am qabaa'ilkum kale haadeen am haan shantile haadeen am haan litile haadeen
qof kasta oo muwaadin ee way xaq in leeyaa in wadanka jagada inka sareyta isku qabo laakiin su'aalo meelo taaliya may beetaa unog may baleeray shaata awgey leey hoobuso galada ka dhaxdhiye digila marafle lixdunka ilaa hadduu gudoomiye baarlamaan iyo ka shaabadaysanayaan iyo lahaayaan iyo fadaayaan iyo weli qaadadaayaan okay hadda lamada kun iyo tumilite xagaan leena gudoomiye baarlamaan fadaan madaxweynimi fadaan hoysin latin mis isin artan managadaas oo intii lama dhatub ku baatan xitaa Soomaalnimada lisiin ku bi sid gobol haystaan hadda meelona maaragtay bakool maaragtay umad kale ta qabsato unin la tarhaanana ta ku durwaan oo gabi ahaan balisiin baabi ma ku yaabo walaysin rajaya ta daraadee gudoomiye baarlamaanka Mr Jawaare irreguus limite oo rajadiyo ta gudoomiye baarlamaanka qaadan hal mise danti iyo digil mirafle ka jarto laka badbaadiyahay naftar jaanti ata may ku yaabo horta jawaabtii hor aan ka sii wahayto way walan kasta oo muwaadin iyo xaqan leh insu jagad in ka sareeyo ku qabto haddana laakiin way buaha runtii mar way jirtay hoob aan run ana keen sheego way buaha mar way jirtay way buaha digil mirafle usub dhulshay barwaaqahaayay oo sanfadaane walaagun oo dawladnimada la ka sheego oo sanfadaane usub usukilay meel aan roog beertay iyo xoologay aan haysado dawlad ka ahaa ilaahay dawlad aadile niishan saasa way boo hataa ra'iisul baarlamaanka bisadaasa la ka sheene yogona nacayaan madaxweynenimada iyo ra'iisul wasaarnimada iyo walaaga saytoob yogo anfadaane horta baarlamaanka bisaas la ka sheene dadka arkaas way boo dad oo isyo dawlad ay yahay horta tan kale way buaha haddii aad dheegti aan hadda korna ma ushi way xasuusnaha oo aan hadda kor la inku sheekay way buu sheekadu cajiib ah sheekadas laakiin anigu dhogay markii dambe aan ka aragay hayti way buu waqtigii oo Talyaani wadanka Israel gumaysi ka jir dad kun digil mirflaal ah runtii meelonka badan oo sadegan ay Talyaaniga oo gumaysiga meelahay dhulkan ko waqooyiga ma birow markii uu sabahay oo xornimada la qaadaday oo sabahay beedhow dhatiye iyo way jiray way buaha lankii markaas governor ka kahay oo madaxda ku hay oo Talyaaniga hay laakiin ka firfircoon ay reer beedhowaha ayaa way an ka weerayeen yaan weeri xafiis yaan ka weeri warniyo kooy geek unu baahayna xorriyada siyaasiyahay dawladda Soomaaliya maqaamkii adafadaas in aad ku qabato in sheeg waxa way maarnay geek ani ka jeey kore marka way buu warniyo ana digil mirflado warniyo Talyaani oo governor Toro waxa way maarnay eed aan ma hadsanta ana reer beedhow aha meel kale aan seedo fadaw beedhow ku taw fadaw waqtigaas marka suuq xoolo way boolan ko gaal oo magaago ay makasaw iyo roogi jiri jimi wala raay mooshi lankaas firimbiga oo suuqto xoolaha ay jiri lankaas Talyaani gaalka koo xiraato waxa way maarnay firimbiga weeri jiri markuu way boo hadii gaalka hebel firimbiga weeri naadida furunta markaas ku bacdu waxa xoolo la gadgada jiri galabti hool deeron hadana waxa way maarnay firimbiga weeri jiri gaalka weeri naadida hirinta arrin marka lankii wala reeb buu jagas ee ka siiyay dawladda koosiya markii la lankii reer beedhow weeri waxa way maarnay ana firimbigaas gaalkaas aw George la raw firimbigaas la in ku qaado hiraabtana soo goolo aan furo ilaa biladku wala oo ka seehi galabtina aan soo goolo aan hiro ya fade aan firimbigaas la isoo beedhow aan roogo fade lankii firimbigaas la ka sii wala rajri aw isaaq raabto oo bus kooyo ba firimbiga weeriye suuq markaas furnaadada furunta leenaadada dawlo galabtina hiri jiri waxa way marnaadada hirinta way baa isaga firim si saasa qanacsanays way ka deereen ilaa iyo 69 ka deeri siyaad bari ku qaaday firimbigi min shibilin dhii markii dambe macna waa la jeedo way baa walaagun dawladnimada la raaw waxa way marna dadka ma fada jirna wala ka qasabi in iyo qaadadan waxa way marna baarlamaanka horta taas ahayd marka hadda ummadii hawada jeesatay حتى حديثنا دمبيو كناك سدان دتكون لكن ويبا كين شيغاي ويبو مرلي اسكو ديدو دونان مرلي نغدا دونان مدحوينه ام كل رئيس الوزراء واتا كينغا دون استاذ آدن marka gudoomiyaha baarlamaanka Jawaare irreglement iyo intii qaadan xilka gudoominimada baarlamaanka aad an araga hayta
may ku yaabo dadkaasay maadaama dad aqoon-yahan ayin dad oo maaragtay in badan siyaasadda ka dhex jiriyo intii aan aragahayn halka Soomaali hoobo oo isin gudoomin baarlamaanka ma fadaan madaxweyne walan hayn hoobo isin haan surantan oo la siin diid intii deegaanada koonfur galbeed sidiidiisin hadda haysataan isin waay doontaan marka maslaxada dadka iyo deegaanada intii saas ka fiiriyahayno ka ilaaliyahayaan may ku yaabo wariye faad waad mahadsan tahay mar kale jaamacadda lagu sheegayo waa derbi marka ugu horeysa derbi dhisan waaye qofba ilaahay maskax buu saaray dhiig buu geliyey dareen u yeelay qofba siduu wax u barto waa waxaad arkaysaa dad jaamici ah oo waxba aan ku turnayn waxaa ka wanaagsan qof aan jaamici ahayn oo dugsi hoose ka soo baxay laakiin dhiig leh ficilna leh Bill Gates ninka la leeyahay jaamacad kama soo bixin computer kaasoo ku sameeyay Facebook ninka iska leh wiil yar waa jaamacad weligiis ma dhigan adduunkana maanta macnii warbaahintaas ama mareegtaas adduunka oo dhan laga isticmaalo waa adduunyada wax fududaysay war nimankan ay u jeedid jaamacaday ka soo baxeen aad leedahay ama aqoon-yahano waa aragti dheer ilay aad leedahay caalamka kama gadmaan sababtoo wata qofka haddii 65 sano xagga uu dhaafay adduunyada meelaa la fariisiyaa kursina looma dhiibo ما فهمت هذا معناها بينشن وقاطع بكاس عقلي جيسي ما مقشي هبل لبع عرور النقدي هو معني مركلو ولا بلبو ها قفك بلي آدم كا مرك وجارو لحدا إيه شنسنا وحي كدم بيا عقلي جيسي عرور نمدي وكسر النقنية سيد حوج جيسي بقى ويرانيو وعقلي جيسي ويرانيا ضدك أشياء جيسي وضد بينشن أما بينشن قلي أما بينشن كله مسك حدودو وحكور ركبان تي أحد كوماندانتي من محاتريا مركي أركان أسقى وزير أو باص جاء وين فرديا هدي دبلة أما كابتن محاتري أما محاوي مادو وحسكو ضيع إنه يشتاق السلام وصاروا كوماندو ضدك عدل هذا هاي وأركت درين وضدك كاسي يا هو معني يا أصاد دجالمي دلني يرى أصاد دجالمتي odayaashu waa odayaashii labada kumi ilaa 60kii la siinaayay qaarna ay diid u kaxaystay waliba qaarkood ay soo raaceen bay daba keeneen waay waatay waxa loo baahan yahay halka intaanan galin waxa loo baahan yahay dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya 7 gobol iyo 8 gobol bay leeyihiin ani saasan aaminsanahay in ay u istaagaan war odaygan adeerkay waay abtigay waay anu ii dhow yahay iyo inta iska daayaan in ay la tartamaan dadka asaagooda ah oo facooda ah ay isqiimeeyaan garab iyo gaashan isu noqdaan amaandorey waa nin daaweyn waa dadkii hore wax soo bartay war isagoo 10 saacadood 15 saacadood shaqeynaya ayuu macnii maalin ilaahay keenay hidii dhaqanka intaas ururiyay jannada Allah ka waraabiyaan la isaga ehelkiisa ma fahmaysa horta odayga maanta Yurub jooga ama Mareykanka jooga cayrta qaadanaya oo shaqada aanan haynin maxaa u diiday signal yar intuu qoraal yar sameeyo ama clip hal daqiiqo uu sameeyo dadkiisa wax ku tari karo maxaa yeelay Ingiriisku wuxuu yiraahdaa your tank your strong xoogaagu can defend against you only 2 or 1 person hal ama labo ka difaaca xoogaaga but your tank laakiin carabkaagu wuxuu ka difaaci karaya more than 100 people in ka badan 100 maxay u hadli waayeen dadka asaagiisa dadka aad sheegaysidna waa dadkaasi dhalinyaradu ha arkaan aayahooda eedeedan ma santaxkii nagada doona markale Dr. Abdullah Ibrahim amaandorey ugu dambeyntii higsiga lamada ku itumi ilita rajada marka la ku gudubo dadka ku jeeda deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya maadaama kursigaasay isin sheegdan intii Soomaali dhan xaq u leeta intii ku qeyb gal oo ma aragtay waajibada lan ka santii suwal ku nagada dadka deegaanadaas ay ku jeedaan malaag nagaday aqoon-yahan nagaday siyaasi nagaday xisbiga oo ma aragtay Shariif Xasan nagaday xisbiga Shariif Jawaari nagaday xisbiga oo Saalax nagaday xisbiga weedin nagaday isin oo iyo ku naxayaan dadkaasay uqubadiyo dadkaasay iliyo dadkaasay masaakinte dadkaasay oonay alle ka hirin oonay xalaal quudatada iyo ka naxayaan dadkaasay iyo oonay dalkaasay iyo awal anfiiriyaan may kala dardaarama lahayti may sheega lahayti ilaa hordaan yaa maaragtay shaati gaduud reeguslimid ay
reg oonay maaragtay oo kale oo siyaasiyiin ku mid ay ku digeen wal gudoomiye baarlamaan leerow intii digle marafliyo aadan tan hadda dareerta may ku digil lahaytan intii gudoomiye baarlamaan la qaadan intii la qaadan tan kale dhalinyarada hadda kor hayta yoona ma inka baaqo lahayti ugu dambeed runtii horta عشان إيدا ما تنت أنت هذا شيء تبغى بهاتو أو سؤال بقى بدرسه لكن والك قاضي ويبوها إن رنتي ولا دكان ونفضان ويبوها إن يوم نقدر نصدق ومضوجس كلي يوم نقدر نوكل مثلا حتى مدحوين نملي مئة رئيس الوزراء نملي مئة ويجران مثلا ومضوجون كل مركلة هسكدر ويبوها أفرتون سفارة ده عالم كفرهم لما ميا مسجد يا وحوي مارنا دقيقة يمر في الكلية أو هالخلق كروح حتى ينطرج والماتريال مركا هالينكي والتراين ميل لكبي كنتي هرتان سأنا كين شيء بويبوه رجدا إنه هرتمحون لكن ويبوه تكون كنتي والكست أو متفضاس ودت هرتي ملوايو تكون هرتي وين كدقي لهاي ورد تكون ولا يوفدايان هرتي جناتنا ويبوا أمدون أو كفر قلبيت أكو جدو ويفداسه ويبصدق أمدوغس كلا هاتو ودنك أنت والحكومة هيكس قال الشيء أو هيكس كلا با هيكس لما تكون تميل تلمه هيكس يال كلي جرام الدنيا المركز لي مدام هذا الدنيا قدوم هيكس قال الشيء لما تكون تميل توي الدنيا قدوم الدنيا مدام هذا حتى مركز ديلكو قول يسلو لكن نقول ولا اسكدياو هان أو هرتيجن دتكو هرتيجننا أو نقدين الباب أو هاني حبته مركلك لو أنكران حتى نقدين ورإله يسين كدارني هو مرنا هدي اسم كلها تندقيل إمرفله أو هناك دتكين يودلكين اسم فداسان دتكو كهر برما هدي اسم نفتقي ينبو اسم ومذوكال أن لا ترتمانه أو اسم ميلي بدرات كنسين دير سيي أو اسم ميرس ليبك إكاب عبورك ميل ليبك جبي وردتكو كهور برما ومدون وي فداس هرمرة فداس شقي فداس ورشدي فداس اسبتالي فداس ودوين اللي إصو فدايا دتكو كهور برما مدحذو حوالي مارنا إن هيكس لما تكون اللي تولى يقدم بيبو مدحال نقدوها ميلون سنس كايتا يشابدون اللي يشابدوا كهور برما ومد دتكها ده بها يدلن يرد أو قلبش النظيف كأنه ويكلا تالي لهاي ويبوها انتي دلقات يو سمر ويلدان أفكار يو سمر يو دلقات يو ان لهاي نميل مديرو مركز سمر يو دلقات ان يو ويلدان يو تنكالو انكو ديجي ويبوها مركز تو أمدون أو ديجي المرفل أمكار دالن يرد ويلكو يابها دتكال أو دالن يرد أو ديجي المرفل مغاج أو شيغداو أو لكن أمدوغون كالا كوميد إن يو دح غلان أو ديتي لانشو والترك ايو كدران أو يو نغدان هالشيت هوب يو أصلاً كاسم عتري ميلو إنك جماعة يوم ميلو أن وضر هران إيها ورويب واه لانكو أو حسين دحقلي أو محاتريجة أو إسكويلو إن دقيل يمرفل إسكويلو أو ميل قلت السندراو أو تتكين سندراو إسكو إلاليا ده تصدوب النجدا سم أو سي أو اسم لترتن تام أمضون كال أو سومالية. واتاي إيه دي ما سنتور عبد الله إبراهيم وقدام بنتي أستاذ آدم إنكريس إسلامت كالوتك أي فامي نورو أمال رو قرنيو يهجرتي مثل بالكية إرتيها كادي فوركي إدال أدي أبو شروية حل كورتي بيدو مدي شانته لأنك سياسي الرجيدة جات أنت مركز إسلام تسليه رسولنا هذا أنشور شغل إسقره بيه قرنيو بمين كذا مثل بالكم إن كذا يأرت حرانت ميلك أو ماركته إن كان جو مثل أم قرهن هذا لي سياسي ديس أته oo siyaasidiisan hayn intiisa Soomaali wal ku magalo adduunyada maaragtay gobolada shalgadin teekodoon iyo badoomada aragdi intiisa maareeyo meel aanshur ku qaada rajidiisan hayn oo macnaha ujeedada ma buuye madaxtirimada Soomaaliya inta wal ku magalo goboladun leh kana gado iyaatire lay ka dareero sidii ay fahmay ay habay jeeg keelera ay sheegasaan iyaatire lay han dareero hore in soo rigno as siyaasiyiinta may kala dardaarama lahayti may sheega lahayti tan kale dhalinyarada hadda korahay yoona may dhiirigeli lahayti adoo koobas maxaad u sheegi lahayd waxa jirtay su'aal aad hore ii weydiisay su'aashaasi waxay ahayd ustaad aadam tinta maxaa ka biibiyay safal
waxbaa ku haray tinta waxaa aniga iga biibshay doctorka ku baaqi yeelay adigana aad la baqanaysaa waa baraarujinta bulshada koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidii loo badbaadin lahaa baaqi haray ummadda koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaan u sheegayaa siyaasiyiin baa idin haysata siyaasiyiintaasna waanu ka hadalnay waanu idin sheegnay siyaasiyiintaasi iyaga ah meesha in ay ka leexdaan waxay ku imaanaysaa in shacbiga uu isku xirmo ayna yiraahdaan no more ma doonayno intaan in ka badan inaan hor istaagnaataan siyaasigan qoriga soo qaadanaya ama dhalinyarada intuu qabiil ugu yeerto baydhabo kaliya iyo macnihii shabeellada hoose qaybo kamida iyo bakool kaliya islaantan qoryaha sida masaakiinta caadaloodka dhalo iyo dhalay dhabarka ilmaha ku sida ee uur kale maalin walba doonaya waxay buunshaday soo qaaday inuu cashuur sidaas guriyo ama ku qaylo ama ku tunto sida aan ognahay wasiirro villa Soomaaliya jooga niman inaaga waxay doonaan ha aadeen maalin walba xaalkooda si qaas aan uga hadli doona mar